إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولا ليال إن شاء الله درسيغان aan maanta insha allah isugu nimid wuxuu ku saabsan yahay dacwada islaamka iyo diinta oo la faafiyo iyo diinta oo dadka la gaarsiiyo fadliga ay leedahay iyo ahamiyadda ay leedahay ayaa uu ku saabsan yahay marka insha allah intaanan u gelin darsiga muxuu ahaa mowduuca aan ka hadli doono waxaan tilmaamayaa insha allah sababta aan u doortay mowduucan oo ah awalan walaalayaal mowduucan ama addacwatu ila allahi subxaanahu wa tacaala waxa weeye ma aragtay acmaasha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay waxa weeyaan muhimaddii ama shaqadii ilaahay dadkii uu jeclaaday ee uu doortay ee dadka ka dhex doortay shaqadooda weeye kuwaasoo ah rusushii ilaahay iyo ambiyadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu ammaanay qofka diintiisa dadka ugu yeera nebigana sidoo kale qur-aanka iyo sunnaduba axaadiista iyo aayaadka qur-aankuba waxay aada iyo aada inoogu tirtirsiiyeen ama inoogu gubaabiyeen barashada iyo baridda diinta islaamka waxaa kaloo iyadana muhiim ah oo sababaha ka mid ah inaan tilmaano iyadoo waqtigan la joogo ama casrigan la joogo ducaatu shubahaati washahawaat ay boorka iska jafeen dadkii sharka dadka ugu yeeri jiray ee diinta saxda ah ee ummadda inay qaadato oy ku noolaato oo ilaahay ugu dhowaato oy ku dhimato la rabay qaska gelinaya oo ka leexinaya waddadii toosneed ayagoo qolooyinkaas adeegsanaya wax alle wixii awoodahoo la siiyey iyo wax alle wixii ma aragtay teknolojiya ah ama dadku ay yacni kusoo dabi karaan ayagoo adeegsanaya taasoo ay ka mid tahay wasaa-isha maanta wax lagu faafiyo ay ka mid tahay wax hadda annaga aan ku wada xiriirayno raadiyayaasha tviyada internetka jaraa-idka majallaadka yacni muxuu ahaa wax walbaba ay u adeegsadeen inay dhumiyaan dadkii inay da-yartii ka leexiyaan dariiqii sax aha inay dadkii ayagoo guryahoodii jooga ugu geliyaan fasaadkii ugu wen yahay alkufru billaah ilaahay oo lagu gaaloobo diintiisi oo yacni muxuu ahaa la dayaco sidaa darteed
waxaa la gudboon dadka ahlu khayrka ah, culummada, waxgaradka, dadka diinta jecel, dadka islaamka jecel, dadka ay ka dhab tahay jacaylka diinta ay u qabaan, inay ayaguna yacni kuwaasi dadaalka ay hayaan mid ka weyn ay la yimaadaan oo guri walbaba ay galaan. guri walbaba ay galaan. maanta waxaad arkaysaan in guri walbaba in la galo ay sahlan tahay. qofkiiyo gurigiisi joogo sariirtiisa saaran inuu diinkan gaaro ama la gaarsiiyo ay sahlan tahay. isagoo gaarigiisa ku jira inuu diintan ay gaarto ay sahlan tahay. kuwo badanoo laga yaabo hadda safar ah oo waddada haya inayna dhegaysanayaan, wahaakada. sidaa darteed in barnaamijyada noocan oo kale ah ee walaalaha khayr oo allah siiye ee runtii ku fekeray barnaamijyada noocan oo kale ah inay laabaan juhdigaas oo ay badiyaan khayrkaas oo diinta dadka ma aragtay ku gaarsiiyaan meel walba ay ku gaarsiin karaan. marka walaalayaal, asbaabahaasi waxay keenayaan in laga hadlo muxuu aha fadlu dacwati ila allah wa ahamiyatuha, fadliga dacwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay leedahay iyo ahamiyadeeda. awalan fadligeeda waxaa ugu filan, saan sheegay, fadli waxaa ugu filan dacwada inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay wadiifadii ama shaqadii ambiyadiisa ama dadka ka dhex doortay. dadka waxaa laga yaabaa hadda haddii la yidhaahdo shaqadee ugu jecesha inaad ka shaqayso, qofba waxaa laga yaabaa inuu wax sheegto. mid waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo inaan noqdo injineer macruuf oo dadku ay wada yaqaanaan oo yaan jeclahay. mid waxaa laga yaabaa inaan noqdo dhakhtar sumcadiisu ay weyn tahay oo qalliimo sameey inaan noqdo. mid waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo inaan ma aragtay madaxweyne noqdo, wahaakada. laakiin walaalayaal, waxa qiimaha uu leeyahay ama darajada uu wanaagga ka joogo laguma qiimeeyo dadka siday u arkaan, ee waxaa lagu qiimeeyaa ilaahay agtii waxa uu ka yahay. weligaa haddaad wax qiimeynayso oo adiga waxaan sheyganu qiimihiisa xaggee la egyahay haddii aad rabto inaad ogaato, waxaad saartaa miisaanka sharciga. ilaahay iyo rasuulkiisa maxay ka yidhaahdeen, maxay shayganu ilaahay ee rasuulkiisa agtiisa yani xaggee buu ka joogaa inaad wax ku qiimayso. sidaa darteed, maadaama dacwadu ilaahay agtii shay aada u qiimo badan ay tahay, waxaa loo doortay dadkii hogaaminayay ee majaraha u hayay ee dadka ugu horreeyey hogaamiyaasha inay noqdaan rususha ilaahay soo diray iyo ambiyadiisii inay noqdaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yani hogaanka uga dhigay. kadibna ciddii waddadooda raacda ee u taagan diintan inay faafiso ilaa qiyaami saaca, ilaa iyo adduunkan uu ka gabagaboobo, ayaa iyagana fadligaasi wax ka helayo wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixa wa qaala inanii min almuslimiin. yaa ka hadal wanaagsan xagga oraahda qof ilaahay diintiisa dadka ugu yeeray, islaamnimada dadka ugu yeeray, towxiidka dadka ugu yeeray, sunnada dadka ugu yeeray, yacni maogtay sharafka iyo cifada dadka ugu yeeray, wax alla waxay diintu amraysa dadka ugu yeeray, oo haddana isagiina ku camal falay waxuu dadka ugu yeerayo, camal saalixa la yimid oo yidhi wa qaala inanii min almuslimiin. marka jawaabtu waxa weeye laa axada afdala wa axsana qawla minhu, yacni qof ka fiican qofkaas ama ka qowl wanaagsan, yani muxuu ahaa ka oraah wanaagsan ma jiro wey qofkaas isaga. waxaa kaloo kutusaya yani mathalan muxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa xadiidka imaam muslim uu soo saaray, man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi. qofkii dadka khayrka tusiya, qofkii dadka khayrka bara, qofkii dadka diin ugu yeera, qofkii khayrkaasi la yimid ajrigiisa oo kale ayuu leeyahay. waxaa kaloo ka mid ah nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiidu cuthmaan oo ma aragtay isagana bukhaariga ku jiray, oo nabiga calayhi salaatu wassalaam uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu. khayrukum dhammaantiin waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka barta oo haddana dadka bara. u fiirsada markaan idin leeyahay miisaanka sharciga saara,
haddaad rabto waxaan qiimaha uu leeyahay iyo ilaahay agtii meesha uu ka joogo yacni nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu leey dhammaan dadka waxa ugu khayr badan ilaahay agtii marka yacni muxuu ahaa yacni xagga alle waxa ugu khayr badan dadka qofka qur-aanka barta oo xifdiya oo fahma oo macnihiisi garta oo ku dhaqma haddana dadkana bara dadka sida loo akriyo u saxa carabkooda u macneeya ma aragtay ku guubaabiya ugu yeera kaasaa dadka ugu khayr badan saasuu yiri nabiga alayhi salatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah yacni dadkii hore muslimiinta salafkii ummaddan yacni khayrka ay maqlaan ama wanaagga ay maqlaan ama diinta nusuusta ay maqlaan way ku dhaqmi jireen way dhaqan gelin jireen aad bayna ma aragtay quluubtooda u taaban jirtay taabici la yihahdo abu cabdiraxmaan assulami oo xadiidkan ka wariyey cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu ayaa wuxuu ahaa macallin buu ahaa qur-aanka bara aad buu qur-aanka baridiisa dadka ugu dadaali jiray muddooyin dheerna wuu bari jiray ilaa in la yidhaahdo muddooyin 40 sano gaarays ama ka badan buu macallin ahaa marka waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi abu cabdiraxmaan adiga mar alla markii lagu soo maraba halkan baad fadhidaa caruurtaad qur-aanka bartaa dadkaad carabka u saxdaa asxaabtaada waa la ma aragtay way dhaqaaqeen waxay ma aragtay aadeen adduunyada lacag bay yeesheen tijaarooyin bay yeesheen guryay dhisteen adiga humuumtaas iyo arrimahaasi kuguma jiraan miya inaad bal ma aragtay sida dadka hadda u yaqaanaan oo kale inaad horumar samayso inuu ka horumarkuba uu yahay keliya inuu ma aragtay adduunyo un yani qofka uu ma aragtay uu daba joogo keliya inay tahay sida dadka hadda u haystaan oo kale markaasuu wuxuu ugu jawaabay yacni aqcadanii huna xadiidu cuthmaan khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah aniga halkaa waxa ay fariisiyey oo igu koobay meeshan oo yacni xadiidkii cuthmaan ibnu cafaan nabiga uu ka wariyey oo ahaa dhammaantiin waxaa idinku khayr badan qofka qur-aanka barta ee dadkana bara markaasuu macnaha ujeedadiisa hadalkiisa waxa weeye wax ka khayr badan oo aan ka aado kan miyaad ii sheegi lahaydeen iima sheegi kartaan haddaydan ii sheegi karin maxay tahay marka waxaad leedihiin yacni tijaaradan aan ku jiro ama businesskan aan ku jiro oo yacni tijaaratu maca allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu dhowaanayo oo fadligiisa aan la koobi karin inaad iga kaxaysaan oo xutaamu dunya iyo waxaan qiimo lahayn iga kaxaysaan ma saasa rabtaan marka walaalayaal qofka marka khayrka ku jira daaciga ah ee diinta ilaahay subxaana wa tacaala baraya ama baranaya ama dadku ugu kaalmaynaya inay bartaan ooma khayrka u gargaaraya oo maaragtay yacni guubaabada khayrka haya ha ogaado inuu ilaahay agtiisa qiimo badan uu ku leeyahay oo qofkaasi runtii yacni ilaahay subxaana wa tacaala khayr fara badan uu la damcay wanaag badanna ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey qofka isaga ah ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama dhalinyaro ha noqdo ama qof odaya ha noqdo yacni meel alla meeshuu doono adduunyada ha ka joogo sidoo kale yacni xadiidkii isagana ma aragtay bukhaari muslim ay yani labaduba ay soo saareen sahl ibnu sacad radia allahu canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fawallahi lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumari الnicam ilaahay baan ku dhaartay marka uu cali khaybar u diray wuxuu ku yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu sababtaada ilaahay inuu hal qof ku hanuuniyo caliyow waxay kaaga qiimo badan tahay geela cascas yacni wixii maal ahoo waqtigii carabta ay joogtay ugu qiimo badnaa buu nabiga calayhi salatu wasalaam wax ku fahamsiinayaa oo uu leeyahay inaad hal qof sababtaada ilaahay ku hanuuniyo oo adiga sabab aad ugu noqoto sababkaas wuxuu noqon karaa inaad kelimad khayra u sheegto oo si dabacsan ugu sheegto oo intuu ku fahmo ilaahay ku hanuuniyo inaad cajalad siiso wacdi ah oo cajaladii markuu dhageystay ilaahay sababtaada uu ku hanuuniyo inaad soo kaxayso oo aad maaragtay meesha muxaadarada yacni ay ka socotay aad keento oo adiga sababtaada ilaahay markaas uu ku hanuuniyo waxay kaaga khayr badan tahay khayrun laka min xumari الnicam geela cascas maanta haddaad odhan lahayd yacni maanta baabuur marsheediisa lagu siiyo waxaa kaaga khayr badan yacni inuu hal qof sababtaada ilaahay inuu ku hanuuniyo haddii hal qof sababtaada ilaahay uu ku hanuuniyo ilaahay nabigu uu yiri waxay ka khayr badan min xumari nicam famaa baalu qofkii ilaahay sababtiisa 2 qof uu ku hanuuniyey ama 3 qof uu ku hanuuniyey
ama ka badan uu ku hanuuniyey. marka waxaad arkaysaa yacni fadligaasi aan la koobi karin ayuu alla subxaanahu wa tacaala kula doonay weeye, ma garatay. marka sidaasaa loo baahan yahay qofka daaciga inuu ma aragtay uu ka fikero wey. sidaas darteed walaalayaal, dacwadan ahamiyadeeda waxaa tusaya ma aragtay la-aanteed ummaddu yacni ma qabsanayso dariiqa xaq ah. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rususha markuu soo diray wuxuu u soo diray dadkii muxuu ahaa keligood ma hanuuni karaan, caqligoodana kuma hanuuni karaan. marka rusul baa loo soo diray, ilaahay diinna waa usoo dejiyey. rusushii marka diintii ilaahay la soo diray bay ugu yeerayaan, towxiidkay u saxayaan, kufrigii iyo shirkigii ay ku jireen bay yacni muxuu ahaa ka saxayaan, caqiidaday u saxayaan, bidcaday ka saxayaan, xumaanta iyo macaasiday ku jiraan bay yacni muxuu ahaa ay ka celinayaan, wanaaggay ugu yeerayaan. haddiise la waayo taas oo laiska wada aamuso oo qof walbaba u yidhaahdo aniga yani maxaa iga galay, waxaa dhacaya wax khataraba dhacay. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegaya qur-aanka, wuxuu leeyay fi suurati ali cimraan, waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun. halidinka helo ummad idinka mid ah oo dadka khayrka ugu yeera, oo wanaagga fara, oo xumidana reeba, kuwaa weeye buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala kuwa liibaanay. marka yacni dadka ducaadda ah ee isku mashquuliya dacwada yacni sharaf waxa ugu filan inuu ilaahi subxana wa tacaala uu ku ammaanay inay yihiin wa ulaa'ika hum lmuflixuun, dadkaasi liibaanaya inay yihiin. saas darteed ayaa la rabaa qof walbo muslima in uu iska saaro xil dacwadan faafinteeda iyo diintan gaarsiinteeda. qofka cilmiga leh ee aqoon leh ee dadka wax bari kara inuu dadka wax baro, ee wax ku baro muxaadaradiisa ama darsiga uu jeedinayo ama su-aasha uga jawaabayo. qofkii aan cilmi lahayn ee maal ilaahay sii, maalkiisa dacwada ha ku garab istaago, madaarista muslimiinta ha u dhiso. ilmaha yare aan wax baran karin, ilmaha yare aan awood u lahayn, reerkoodu uu faqiirka yahay, ha ka bixiyo yacni wixii wax ku baran lahaa, ama wixii u baahnaa buugaagta u baahnaa, ama wixii wax lagu bari lahaa ha ka bixiyo. masaajidii iyo meelihii khayrka lagu faafin lahaa waxa ka dhiso. madaaristii cilmiga lagu baran lahaa maalkiisi ha uga qeyb qaato. saasoo kale marka yacni qof walbaba qeybta uu isagu ku aadi karo ha ku aado. haddii labadaaba uusan awoodin laakiin uu awoodo muxuu ahaa inuu wax qabanqaabiyo, inuu dadka isu keeno, inuu gaarigiisa ku qaado dadka meeshii muxaadarada uu lagu akrinaya cilmiga laga baranaya inuu ku geeyo, inuu dadka u sheego khayrka socda. sida hadda idinka aad u dhageysanaysaan inaad wacdo dadaad saaxiibadaada ah, qaraabadaadi ah, khayr ba halkan ka socday soo gal oo dhageyso aad tiraahdo, waxay ka mid tahay inaad dacwadii adiga aad qeyb ka tahay oo adiga laftaada waxtarkeedii aan maaragtay qeyb aad ka tahay. marka kuma koobna dacwada marka la yidhaahdo culimada casharada akhriya keliya kuma koobna. waxa weeyaan yani alcamalu liddiini mas-uuliyat ljamiic. diinkan oo loo shaqeeyo dadkoo dhan bay mas-uuliyadeedu tahay, laakiin qof walba mas-uuliyadda qeyb baa kaga aadan iyo inta awoodiisu ay tahay. la oran maayo aniga haddii aanan culamo ahayn oon waxba akrin karin shaqo kuma lihi, oo ma aragtay yani haddaan salaadayda tukado oo aan maaragtay waqtigayga maxaan soomo oo ilaah hadduu ku ran yahay wax aan diinta tari karo lama arko. laa kala sidaasa ma aha. xataa gurigaaga inaad diinta ka noolayso oo xaaskaaga aad u sheegto oo ilmahaaga aad meeshii muxuu ahaa diinta ku gubaabiso oo masaajidda aad keento oo gurigii aad xalaqad ka samaysataan oo cajaladihii aad wada dhegaysataan, inaad qur-aanka isaga baxdaan, inaad maaragtay isu meerisaan, inaad wada muraajacaysaan, waxay ka mid tahay dacwadii oo aad qeyb ka tahay. macalimka qofka ee wax baraya inuu madarasadiisa uu ardada wax barayo guubaabiyo oo diinta u saxo oo salaada u saxo oo caqiidada u saxo oo tasawurkooda iyo mafaahimtooda u saxo ayaa laga rabaa. sidoo kale qofka shaqaalaha
meel ka shaqeeya dadka la shaqeeya inuu diinta ugu yeero oo haddii uu arko qof aan salaadii muxuu ahaa aan toosinaynin salaada u saxo mid salaadii ka tegay inuu u sheego salaada ahamiyada ay leedahay ka tegideeda kufri inay tahay inuu u sheego imaamka masjidka dadka jamaacada masaajid kusoo tukada qof walbaba saas oo kale dadkiinan hadda halkan ku wada jira sidoo kale inaan ma aragtay yani kolley waan ogahay qolalka noocan oo kalea yani inta yani ay furan yihiin waxaa ka socda khayrkaasi baa ka socda oo dadka wax loogu sheegayo ogaada idinka inta qolalkaasi khayrka ay furan yihiin intaasoo kale oo qolal oo sharan inay furan yihiin balse weliba dadkeennii luqadooda loogu sheegayo sharti ama loogu yeerayo xumaantii marka ayagana ilaahay waxaan u weydiinaynaa walaalaha saas oo kale ah inuu ilaahay soo hanuuniyo oo ayaga qolalkooda in ay noqdaan qolal marka dambe diinta ilaahay subxana wa tacaala loogu adeego aya marka dadka waxaad arkaysaa marka yani culayska yani saaran dadka ducaadda iyo ahamiyada dacwada ay leedahay maxaa yeelay mar walbaba dadka baatilka dadka ugu yeera ayaa aad u badan oo ayagu ma aragtay yani muxuu ahaa aad arkaysaa inay aad baatilkooda ay u tarwiijinayaan hadday sidaa tahay marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray nebigiisa inuu dadka ilaahay diintiisa ugu yeero isaga oo adeegsanaya xikmad diintan dadka markii loogu yeerayo waxaa la rabaa si ay u qaataan in la adeegsado xikmad iyo hadal dabacsan iyo wacdi fiican iyo inuu qofka aad diintaad ugu yeerayso uu kaa dareemo qof adiga aad tahay inaad tahay qof alla rabo khayr iyo wanaag uusan u arkin qof muxuu ahaa isagii ceebaynaya ama yacni duraya inuusan ku arkin oo aad ma aragtay dabacsanaan iyo yani weji furnaan iyo hadal wanaagsan iyo saas oo kale iyo si asluub wanaagsan oo loo bandhigo diinta aad dadka aad u sheegayso ama kelimada wacdiga aad dadka u gudbinayso ayaa la rabaa sidaa darteed buu ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana yacni nabiga calayhi salatu wasalaam waxaa lagu leeyahay wadada rabbiga markaad dadka ugu yeerayso ugu yeer xikmad ugu yeer xikmo ugu yeer xikmaduna waa mina wa nicma cadiima min allahi subxaanahu wa tacaala xikmadu waa asluubka iyo dariiqada iyo qaabka wanaagsan ee qofka dadka markuu diinta u sheegayo uu adeegsado oo qofku ilaahi subxaanahu wa tacaala uu siiyo uu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu runtii uu ku galladaysay nicmo aad iyo aad u weyn xikmo adeegsaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wacdi wanaagsan wuxuu kaloo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira wamaa yadakaru ilaa ulu lalbaab ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmada qofkuu doono siiyaa qofku ilaahay xikmad siiyana khayr fara badan buu siiyey rabbi subxaanahu wa tacaala yacni mana waa uu waansamo ilaa dadka ahlu caqliga ah mooyaane marka walaalayaal yacni waxay ka mid tahay yani xikmada wax la kasban karo oo dadku tamriin iyo tadriib iyo yani dadaal iyo haddii loo helo yani qofka uu kasban karo yani oo weliba dadka ducaadda ah inay mararka qaarkood laftoodu yani inay samaystaan waxaan la yidhahda dadku ay seminaarada yirahda ama workshobyada ay yidhahdaan in loo sameeyo oo lagu horumarinayo qaabka dacwada loo wadi lahaa aad bay muhiim u tahay walaalayaal yani adduunyada haddaad u fiirsasada qaabka loo shaqeeyo iskuullada meelaha maaragtay yani meelaha dowladaha muasasaadka sharikadaha shaqaalahoodu mar walbaba waxaa loo furaa seminaaro iyo workshopyo ama yani tababaro lagu horumarinayo yani wax soo saarkooda wax shaqadooda waxqabadkooda iyadoo mar walbaba la adeegsanayo yacni wixii markaasi yaalla muhiima ee shaqada lagu horumarin lahaa ama loo adeegsan lahaa ama wixii lamid ah marka maxay marka dadka ducaadda ah ayaa uga habboonaan badan in saas oo kale loo furo yani muxua seminaaro lagu horumariyo ra'yi laisku weydaarsado oo ayagina maarata su-aalo ay soo jeediyaan mashaakilada ay la kulmeen sidee saas oo kale maxaa laga yeelaa dad culamo intii loo yeero laga soo qeybgeliyo oo markaasi ay yani ayagana jawaabahoodii meesha iyo muxuu ahaa kelmadoodii ay kasoo jeediyaan waxyaabahaasoo dhan marka waxay keenaysaa inuu kasbado qofkii daaciga ahaa khibrad
iyo muxuu ahaa yani shaqo uusan laga yaabo markii hore uusan yani uusan ulahayn awood oo markaana dacwadiisi ay sii ficnaato. ibn اlqayim raximahullah xikmada markuu fasirayo wuxuu yidhi ficlu maa yanbagi cala alwajhi aladi yanbagi fi lwaqti aladi yanbagi. xikmo waxaa la yidhahdaa yani waxaa la yidhahdaa buu yidhi waxa habboon ee loo baahan yahay in la sameeyo loona sameeyo sidii ugu fiicneed iyadoo la samaynayna waqtigii ugu fiicneed. u fiirsada ficlu maa yanbagi waxa ugu fiican ee markaasi aad wax ku saxaysa inaad la timaado sida ugu fiicanna aad usoo bandhigto waqtigana uu yahay waqtigii ugu habboonaa. yacni waqtiga haddii uu waqtigiisuusan ahayn waxaad arkaysaa mathalan inuusan yani muxuu ahaa xikmada mathalan waxaa ka mid ah walaalayaal dadka markaad wax u sheegayso kale inaad si dabacsan wax ugu sheegto oo hadalkaad u jilciso oo aadan oranin qofkii munkar ku jiri yani waxaa tahay faasid baa tahay nin khayr laawo aad tahay xumaantan umaad ku dhex jirta aadan saa ku dhihine aad tiraahdo ma aragtay si dabacsan wax ugu sheegto. nabiga calayhi salaatu wassalaam haddaad fiiriso siiradiisa iyo noloshiisa siduu wax u sixi jiray waxaad la yaabaysaa ma aragtay arrin aad iyo aad u yaab leh. xadiidkii saxiix ahaa ninkii saxaabiga ahaa muxuu ahaa masaajidka iyadoo lagu jiro oo saxaabaduna ay nabiga la fadhido ninkii yani markaasi ama iska reer baadiyaha ahaa ama xurmada masaajidka aan markaasi aada u fahamsanayn aqoon yari ay u geysay ee markaasi kaadi intay qabatay dadkii oo meeshii la fadhiyay masaajidkii dhinac inta ula jeestay ku bilaabay inuu masaajidkii ku kaadsho masaajidkii inuu ku kaadsho ku bilaabay. markii ay arkeen saxaabadu aad baa runtii falkiisi looga argagaxay loogana naxay balse waxay ku dhowaadeen inay garaacaan oo ay idbiyaan oo ay yidhaahdaan waxaanu muxuu yahay beydkii ilaahay la soo galay kaadi iyo quran ma aragtay. waa sida hadda dadku ay yeeli lahaayeen. saxaabadu dadka ugu fadli badnaa bay ahaayeen oo nabiga alayh salatu salaam la kulmay. haddii saxaabadu kaas ay hamiyeen inay garaacaan kuwa maanta jiro waxaaba laga yaaba kurka inay ka goyn lahaayeen ama dili lahaayeen. nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu arkay xaaladda meeshay marayso wuxuu yidhi ma aragtay dacuuhu yacni faraha ka qaada buu yidhi. riwaayo kale laa tasmuruuhu war u kaadiyo kaadida ninka ku goynina daaya ninka hawshiisa ha watee. yani dabcan saxaabadu nabiga calayhi salatu salaam aad bay u maqli jireen. waa la daayey ninkii oo masaajidkii fadhiyo dhinac u jeesto kaadshahe faraha laga qaaday. kaadidii markuu dhameeyey nabiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi halii keeno dalwi biyaha la keeno. masaajidkan haddee waqtigaas wuxuu ahaa ciid buu ahaa ma ahayn kaarbedyadan iyo masaajidan hadda yani sidan oo muxuu ahaa kaarbedyada iyo roogagan yaalla ma ahayne. masaajid marka waxaa la keenay dalwi biyo ah kaadidii baa lagu shubay lagu nadiifiyey biyihii baa yani dhulka galay. nabiga calayhi salatu wasalaam waa u yeeray ninkii wuxuu yihi kaale halkaa ii soo fadhiiso. meeshii buu soo fadhiistay. markuu soo fadhiistay buu la hadlay tartiib buu la hadlay wuxuu yidhi hebelow khayr allah ku siiyo waa u jeeda inaad masaajidkii timid oo khayrka aad ka soo qayb gashay laakin ina hadihi almasaajid masaajidan iyo meelahan lagu cibaadaysto wuxuu yidhi waa meel loo dhisay ilaahay dikrigiisa iyo in ilaahay lagu baryo iyo cilmiga in lagu barto iyo in maaragtay khayrka lagu faafiyo ee looma dhisin kaadi iyo quranka noocaas oo kale waxyaabahaas looma dhisin. marka haddii ilaahay yidhahdo hadda kadib arrinka ogow buu ku yidhi ee sidaa insha allahu yeel. ninkii si fiican buu u fahmay isagoo markaa aada u fahmay oo yacni qalbigiisana mas'aladii ay ka dhaaracday ayaa wuxuu yidhi ilaahayow aniga iyo nebi maxamed noo dhaaf oo dembigeenna dhaaf ilaahu kuwanna ha u dhaafin. yacni kuwan se garaaci lahaa ilaahu kuwan ha u dhaafin buu yidhi aniga iyo nebi maxamed ma aragtay allahuma akfir lii wa muxamada yani walaa takfir macana axada. hadal saas oo kaleba yani uu yidhi baa la yihahdaa. markaasuu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam maya sidaa ha oranin naxariistii ilaahay ee ummadoo dhan u fidsan ha nagu soo koobin aniga adiga keliya. haddana wuxuu kale cashar kale ayuu baray. marka xikmadaasi waxay tusisay ninkiina waa uu badbaaday. saxaabadiina cilmi bay barteen isagiina cilmi buu bartay. xikmadaasi waxa duruusta badane laga qaadanaya waxaa ka mid a u fiirsada walaalayaal haddii ninkaasi markaasi la garaaci lahaa yani waxa mafaasid oo ka dhalan lahaa u fiirsada. sida hadda haddii ay dhacdo
taas ka dhaafe wax ka yar masaajidkeen uu ka dhaco waxaan samayn lahayn ninkaas haddii hadda la garaaco isagoo kaadida u fadhiyo maxaa dhici lahaa waa mafaasid fara badan baa dhici lahayd awalan markii usha lagu bilaabo waxaa dhici lahayd inuu boodo oo uu istaago markuu istaagana kaadidii horta inay ku go'do caafimaadkiisa uu khatar galo oo qofkaasi haddii kaadidii isagoon dhammaysta kaadidii isku gooyo caafimaadkiisa iyo noloshiisa inay khatar gasho waa kow tan labaad cawradiisa inay kashifanto oo markaas hadde ummadii dadkii meesha joogay qofkii markuu yani xanuunsay uu soo booday cawradiisoo kashifan ay ummadii cawradiisi ay maaratay ay muxuu ahaa ay arkaan laba tan saddexaad hadda wuu kaadshay meel keliya buu fadhiyay kaadidiisi ay ku ekeed yani in la nadiifiyana ay sahlan tahay laakiin markaasi najaasadii way baahi lahayd oo markii uu soo boodo meelo badan bay kaadidiisa gaari lahayd intaas iyo mafaasid badan oo lamid a nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga hortagay inuu yidhaahdo daaya nijaasadiina si sahlan baa loo dhaqay isagiina waa la daaweeyey dadkiina cashar bay ka barteen taa marka waxay kutusaysaa marka xikmada ay leedahay in dacwada la isticmaalo sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala markii uu u diray nabiyullaahi muusa wa haruun fircoon wuxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna inahu tagaa faquulaa lahu qawlan layina lacalahu yatadakaru aw yakhsha ordaya oo adigii haaruun iyo muuse u taga fircoon oo waa nin kibray oo ilaahnimo sheegtay oo kufrigiisu xadgudbay waxaad tidhaahdaan hadal dabacsan u dhaha diinta markaad u sheegaysaan si dabacsan wax ugu sheega waxaa laga yaabaa inuu waansamo ama ilaahay ka baqo ilaahay waa ogaa yacni inuusan fircoon waansamaynin oo uu yani fircoon fi qadaha iyo qadarta ilaahay uu maaragtay yani muxuu ahaa muxuu ugu qornayd inuu shaqi yahay oo gaalnimo ku dhimanayo laakiin waxaa la barayaa iyagii inay adeegsadaan hadal dabacsan iyo isluub wanaagsan iyo muxuu ahaa inay adeegsadaan maadaama ayagu ay yihiin dadkii wax daaweynayay daacigu waa dhakhtar wey oo weliba daaweynaya cudur midka ugu xun oo kufri ah iyo munaafiqnimo ah yacni kufriga iyo cudurkaasoo qofka hadduu la dhinto gaalnimada ama munaafiqnimada uu hoogayo abidkii marka waa ka muhiimsan yahay dhakhtarkii jirka daaweynayay waa ka muhiimsan yahay maxaa yeelay yacni qofka haddii ilaahay sababtiisa qofkan uu ku hanuuniyo wuxuu ka badbaadiyey maxay cadaab daa'ima buu ka badbaadiyey sheekh cabdiraxmaan asacdi raximah llah markuu fasiraya udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma wuxuu yidhi kullu axadin calaa xasabi xaalihi yacni diinta ilaahay ugu yeer xikmad waxa weeye macnaheedi qof walbo aad diinta u sheegayso xaaladiisa yacni sida ay tahay fiiri iyo garashadiisa dadka matalan aqoonta leh iyo kan cilmigaba aan lahaynay jaahilka isku si loolama hadlo qofka soo dhowo markiiba inuu wax kaa aqbalo aad rajaynayso iyo mid aad u fogo muran badan sida loola hadlo isku mid ma aha marka xikmadu waxa weeye addacwatu bilcilmi aqoon in la adeegsado oo qofka dadka markaad wax ka dhaadhicinayso waxaad taqaano oad adigu sugtay inaad dadka ugu sheegayso laa biljahli waalbad-u bilahami falaham inaad ka bilowdo waxa muhiimkaa ee loo baahan yahay aad ka hormariso waxa laga muhiimsan yahay wa bilaqrabi ila aladhaani waalfahmi waxa qalbiga dadku u dhow inay fahmaan oo qaataanna aad ku bilowdo taasuna weeye xikmada la sheegayo taasoo ah rifqi turid iyo jileec saas ayaa waxay keenaysaa in qofkii aad wax u sheegaysay uu markaas insha allahu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku anfaco haddaba walaalayaal xikmadu dacwada ilaahay subxaana wa tacaala waa shay matluuba qofka daacigaana waa la amrayaa inuu arrintaas u adeegsado oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi yani qul hadihi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wuxuu kaloo alle subxaana wa tacaala uu yihi fi suurati yuusuf qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin yacni qul waxaad tirahdaa nebi maxamedow haadihi tani sabiilii wadadaydi wey yacni howshan aniga aan hayo iyo diintan aan idinku yeerayo iyo shaqadan aan qabanayo waa wadadaydii aan ilaahay dadka aan ugu yeerayo shaqadiisa marka maxay tahay adcuu ila allah
ilaahay baan dadku ugu yeerayaa calaa basiiratin anoo ku sugan aqoon yacni jahli aanan dadka qof mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu u bambaxo wuxuusan aqoonin inuu dad baan u sheegaya u yidhahdo ama diin baan dadka u sheegaya kaas wuxuu fasahaadinayaa ka weyn wax uu hagaajinayo sidaa darteed waxaadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn dadka adna ha ku dambaabin dadkana ha ku lumanin calaa basiiratin ayaan dadku ugu yeerayaa buu yidhi marka usuusha xikmada waxaa ka mid ah walaalayaal muraacaatu xaali lmadcuwiin dadka loo yeerayo ama diinta loo sheegayo axwaashooda iyo sida ay wax u fahmi karaan in la fiiriyo xikmad ma aha in dadka oo dhan hal asluub loo wada adeegsado mathalan dadka qaarkood oo aqoontooda ay sarreyso ee ayaga cilmi baaris samayn kara ma og tahay sida loola hadlo iyo qof aan waxba aqoonin oo isaga u baahan in maaragtay wixii uu fahmi karo wax loogu sheego isku mid ma aha mathalan duruus u baahan in dumarka laga dhaadhiciyo oo ayaga u fiican tahay in ragga lagala hadlo ma aha axkaam ayaga ku khaasa in maaragtay ragga lagu wacdiyo ma aha yacni wahaakada walidaalika waxaa arkaysaa yacni iyadoo diintu ay dadku u wada baahan yihiin haddana axkaamteedu yani fi'aat mujtamac qaarba inay qaar si khaasa ay takhasus ugu yeelanayso ama ay ugu baahan yihiin in si gaara ay u fahmaan oo maxaa yeelay ayagu ayay aada u khuseeyaa sidaa darteed in markaa la adeegsado xikmadaasi laabudda minha wey marka walaalayaal waxaa kaloo idana tilmaan mudan inaan tilmaano waxa waajibka qofka daaciga ah inuu yani muxuu ahaa uu ka akhlaaq yeesho walow calaa jihati aliijaazi waalikhtisaar yani qofka daaciga ah ee diinta ilahi subxana wa tacaala uu u sheegay waajibka saaran ama tilmaamaha laga rabo isaga laftiisa inuu ku tilmaanaado si dacwadiisa ay u miro dhasho dadkuna ay uga faa'idaystaan ayaa iyadana muhiim ah inaan kulankan gaaban ee aan isugu nimid insha allah aan ishaarno awalan qofka daaciga ah ee ilaahay diintiisa dadka ugu yeerayo waxaa laga rabaa inuu ku dadaalo fi taskiyati nafsihi bilcilmi annaafici waalcamali asaalix isaga inuu yahay laftiisa qof naftiisa kula dadaalay naftiisa inuu nadiifinayo yacni inuu naftiisa nadiifinayo maxay tahay inuu bal horta marka hore isaga diintii ku dhaqmayo oo yacni khayrka isagu ku dadaalayo oo cilmiga baranayo oo camalka saalixa ku dadaalayo haddii kale wuxuu noqonayaa yacni qof wax khayrkana dadka ugu yeeraya isagina ka maran abulaswad addu'ali wakiilaha yaa ayuha almucallimu ligayrihi hallaa linafsika kunta da tacliimi tasifu dawa'a di siqaami wadi dina kayma yasixa bihi wa anta saqiimu yani laa tanha can khuluqin wata'tiya mithlahu caarun calayka ida facalta cadiimu qofkan dadka waxbaan barayaa leh isagina ka maran awalan marka hore adiga waxaa laga rabaa inaad bal horta wax barato oo adiga naftaada hagaajiso ood ku toosnaato wax dadkaad u sheegayso dadkii baad yani daawo u qoraysaa ama waxaa leedahay prescriptionkan baan idin siiyey kada adigiina waad bugtaayo sidaad isu daaweysa ma taqaano hadalkaasi marka wax yani hadal toosan ma aha markaasuu yidhi yani dadka ha ka reebin xumaan adigaad ugu horreyso qofkii yeelo aad tahay ilahayna wuxuu yihi ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun mu'miniinay waxaad u oranaysaan waxaydan falaynin ilaahay agtii caro waxa u weynaaday inaad tiraadaan waxaydan samaynaynin marka ma aha wax uun ma aragtay dadka dacwadu ma aha walaalayaal wax dadku ay lagu tuso awooddaada iyo fasaaxadaada iyo aqoontaada hadday taasu tahay dacwo ma aha marka waxaa la rabaa marka hore warka inaad adigii laftaada aad tahay qof ku sifaysan khayrka aad dadkaad u sheegayso sidoo kale reerkaaga inaad yani ku barbaariso gurigaaga owlaadaada iyo wixii lamid ah wa min sifaati daaciya waxaa ka mid ah walaalayaal inuu nin run sheega uu yahay oo waxa uu ku hadlayo iyo falkiisa nin run ay ka muuqata ay tahay oo qofka isaga markuu hadlayo iyo markuu dadka la dhaqmayo iyo kulligeed ay maaragtay ay yani runta ay ka muuqato waxaa ceeba qof isaga diinta dadka u sheegayo
haddii maar lagu arko waxyaaba ay dadku ka shifaan ama ay ku ogaadaan ama ay ku sugan tahayba inuu yahay qof yani wax isdabamarya ama run aan sheegin ama isagii muxuu ahaa yani aad iyo aad ma aragtay yani waxyaabo badan oo dadku uu sheegay uu ma aragtay uu ka marayahay runtu marka yani inuu isaga marka hore yani ay ka muuqato ayaa la rabaa wey saas oo kale maxaa yeelay wax adiga kaa muuqda ead ku camal fasho marka dadka u sheegto athar weyn iyo raad weyn bay qulubtooda ku yeelataa sifaadka ama akhlaaqda laga rabo daaciga waxaa ka mid a asabru inuu dulqaad leeyahay qofka daaciga ah waxaa la rabaa dadka inuu dadka lama mid aha inuu ka dulqaad badan yahay baridda dadku wax barayo dulqaad baa la rabaa cilmiga uu baranayo dulqaad baa la rabaa hadhowdii markii uu dacwada jeediyo waxaa laga yaabaa in kuwa jaahiliina ay cayaan ama wax ka sheegaan ama wahaakada ama la duro karaamadiisa sharafkiisa kulligeed inuu yani daaciga in sabar baa laga rabaa sidaa darteed ayaad waxaad arkaysaa ambiyada ilaahay inay dhibka la mari jireen inay ku sabri jireen nabigana ilaahay subxaanahu wa tacaala yani ilaahay uu amraya fasbir kamaa sabra ululcazmi min arusul yani u sabir kuwii maarata ululcazmiga rususha say u sabreen oo kale yani saasaa la rabaa marka daacigu inuu ku sabro haddii la caayo haddii la garaaco haddii la xiro kulligeed inuu ku sabrayo wax alla wixii lagu sheego oo maarata xumaanay inuu ku sabro barashada cilmiga inuu ku sabro baridda uu barayo inuu ku sabro waxaa kale hadduusan sabir lahayn iyo dulqaad ma guulaysan karo sidoo kale nolosha oo dhan baa waxaad arkaysaa walaalayaal qofan dulqaad lahayn ma guulaysan karo qofan dulqaad lahayn ma shaqaysan karo oo bayjeegi ma heli karo lacagtii qofan dulqaad lahayn fasal ma xaadiri karo subax inuu soo kallaho oo wax barto qofan dulqaad lahayn imtixaano inuu diyaariyo oo buugaag akhriyo imtixaan ka gudbo ma yeeli karo haddii noloshii adduunkaba yani wanaageedii sabir mooyaane wax kale aan lagu gaari karin famaa baalu hada daaci qofkan daaciga ee doonaya ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo janno doonaya inuu markaasi uu xanaaqo ama uu yihahdo maxaa wax laiga sheegay oo maxay aniga laigu dhibaya waxaas oo kale waxaad arkaysaa inay aad iyo aad maaratay qofkaasi ugu baahan yahay waxyaabihii aan sheegaynay in waksheebyada laga sameeyo oo dadka loo dardaarmo inay ka mid tahay sidaa darteed bu ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay in diintan hoggaankeeda oo la qabto lagu gaari karo sabir iyo ma aragtay iyo yaqiin wajacalnaahum a'imatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun reer banu israa'iil subxana wa tacala ilah markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi waxaanu ka yeelnay a'ima kuwa imaamyo aho oo ma aragtay ku hanuuniya dadka amarkeena iyo diinteenna markay sabreen oo aayaadka iyaga ay yaqiiniyeen marka waxaa la rabaa qofka daaciga ah inuu yahay yani qof oo ma aragtay sabir leh dulqaadkiisuna uu aad u badan yahay inuu yahay haddii aan dulqaad leelin yani sida ay u dulqaataan ahlu sharta iyo dadka shubahaadka iyo shahawaad dadka ugu yeero ma kuwaasaa kaa sabir badan ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu allaha lacalakum tuflixuun war mu'miniinay sabra oo diintiina u sabra wasaabiruu gaalada la sabirtama sabirka kula tartama kuwa kaleba yacni qof faasida oo shar dadka ugu yeray inuu kaa sabir badiyo adigoo khayr iyo wanaag iyo diin dadka ugu yeray lama rabo markasta yani la sabirtama oo yani ilaahayna ka baqa lacalakum tuflixuun waxaad mudanta inaad yani liibaantaan waxaa ka mid ah walaal min ahami sifaati daaciya annaajix wa acdamiha wa adaliha wa akbariha alikhlaasu lilahi caza wajal midda ugu muhiimsan oo laga yaabo in lagu daato oo meeshii maxakul imtixaaniya meeshii laisku imtixaanayaa yacni sifaadka daaciga naajixa sifada ugu weyn ee ugu horeyso ee dadku ku kala harayo waxa weeyaan alikhlaasu lilah horta adiga dacwadan aada wado ujeedadaadu maxay tahay maxaad dacwada u wadaa maxaad dadka wax u bartaa cilmigan maxaad u faafisaa ma in lagu yiraahdo yacni aqoon-yahankii ma in lagu yiraahdo qaarigii ma in lagu yiraahdo muftigii ma in lagu yiraahdo hadday ujeedadaasu iyo waxyaabahaas ujeedooyinkaagu ay yihiin ama shaydaanku uu kugu sheekeeyo waxa weeyaan runtii khasaarad ku sugan tahay isbadbaadi dib isu muraajacay ilaa saa darteed baa aayadda qur-aanka hadda aan soo akrinay fi suurati yuusuf
إلهي سبحانه وتعالى وحوله قل هذه سبيلي تاني ووددي أدعو إلى الله أن أغيري دتك أدعو أن أغيري محي إلى الله إلهي بان دتك أغيري marka ilallahi markii la yiri waxa meesha ka baxay aniga naftayda dadku ugu yeerayo inay dadkii aniga i arkaan oo i amaanaan oo yiraahdaan aqli badanihi cilmi badanihi iyo muxuu ahaa muftigi ujeedadayda ma aha waa inaan ilaahay dartiis ugu yeeraa haddii saas ay jirto waa inaan isa saxa oo is daba qabta haddii kale waxa weeyaan waxaygu waxay noqonayaan bahal bacaad lagu lisay ad'u ila allah marka leedahay xisbigayga dadku ugu yeerayo oo jamaacadayda dadku ugu yeerayo oo yani waxa madhabkayga dadku ugu yeerayo waxaan dadku ugu yeerayaa ila allah ilaahi baan dadku ugu yeerayaa marka taas waxay ku tusaysaa yani ikhlaaska ahamiyada uu leeyahay oo haddii ikhlaas la waayo haddee meeshii waxyaalaba ma jiraan marka ikhlaaskuna yani camalka la sameeyo oo dhan yani labada rukni uu ku taagan yahay rukniga ugu horeeyo wey camal walboo la samaynayo ama salaad ha noqdo ama soon ha noqdo ama sadaqa lala bax ha noqdo ama cilmi la dalba ha noqdo ama jihaad ha noqdo ama dacwo ilaahay diintiisa dadka loogu yar ha noqdo laba rukni ba asaas u ah awalan rukniga hore waxaan ilaahay darti in loola jeedo marka niyada sixideeda aad bay muhiim u tahay walaalayaal walidaalika culamada muslimiinta kutubta markay sanifayaan imaam bukhaari fi saxiixihi yani muxuu ahaa haddaad fiiriso sheekh imaam الnawowi kitaabkiisa maarata riyaad saalixiinka muxuu ahaa culamo fara badan maaragtay kitaabka xataa arbiciinka ee yare axaadiista maaragtay lagu bilowdo kutubta waxay ka bilaabayaan inama alacmaalu biاnniyaat xadiiskaas ay ku bilowdaan axaadiis ay kutubta markaad fiiriso waxay ku bilaabayaan xadiiskaas nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiis cumar bn khadaab inama alacmaalu biاnniyaat wainama likuli imri'in maa nawaa sababtu waxaa weeye ama sirta ku jirta in qofkan daalibulcilmiga ah ee diinta ilaahay soo qaabilay ee maanta cilmi baranaya ee u soo fadhiistay waxa ugu horeeya ee laga daaweeyey inay noqoto niyadiisa adiga halkaanaad soo fadhiisataye hadda horay uma aadan dhaqaaqina qalbigaaga nadiifi diintan waxaa loo bartaa in ilaahay loogu dhowaado in ilaahay loogu yani muxuu ahaa ajar looga helo in ilaahay subxaanahu wa tacaala yani muxuu ahaa diintiisii yani muxuu ahaa la fahmo soo gelidda aada soo gelayso looguma dhowaado yani looma soo galo in hadhowdi caalim lagu yiraahdo dadku ku ammaanaan jago lagu helo cagsi culumta kaleo la baranayo qofka markuu jaamacad galayo waxaa laga yaaba inay niyadiisa ku jirto aniga maanta waxaan rabaa in markan jaamacaddan ka baxo la yidhaahdo engineer hebel niyadiisa saasay ku jirto in la yidhaahdo yani dhakhtar hebel professor kada yani niyadii maxaa yeelay adduunyo yani waa waxaas uu niyoonayo ayaa qalbigiisa ku jira kolleyba adduunka inay xaqiiqadooduna waa suuragal oo hadduu dadaalo in wixii uu sheeganayay uu helo laakiin helidaas adduun bay ku eg tahay aakhire shaqo kuma leh maxaa yeelay wa inamaa likulli imri'in maa nawaa buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qof walbaba wixii uu niyoodo buu leeyahay marka brofesor haddii rabto in lagu yihahdo aada gaartay waa lagu yidhi haddaadan gaarin hadday allaba kuma qadarin waa fashilantay yacni marka adiga niyada aad saxayso aniga markaan kitaabkan baranayo ama cilmigan diinta aan baranayo ama diinta aan dhageysanayo awalan waxaan rabaa inaan diinta ilaahay fahmo tan labaad waxaan rabaa inaan dhageysigan ama barashada aan baranayo ilaahay ugu dhowaado tan saddexaad waxaan rabaa oon ilaahay ka rajaynayaa inaan barto aan dadka baro niyadaasi fiican oo qalbiga aad ku guntatay ayaa waxay ku tahay ilahay agtii wax aad u weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu kugu thawaabinayo aadna aad iyo aad ugu aayi doonto ood ku farxi doonto waqti aad iyo aad loogu baahan yahay sidaa darteed ayaa wanaagsan in maaragtay niyada la hagaajiyo wey maaragtay man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu llah laa yatacalamuhu ila liyusiiba carada min addunya lam yajid riixa aljanna buu yiri nabiga alayh isalaatu wasalaam qofka yacni cilmi barta cilmigaasoo mid ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado ah culumta ilaahay loogu dhowaado tafsiirkii xadiidkii fiqhigii yani cilmigii sharciga
isagoo ujeedadiisu ay tahay ilaahay dartii inuun u baranaynina dadku inay yacni ku ammaanaan ama dadku uu kaga helo magac iyo wixii lamid a qofkaasi yacni jannada urteeda heli maayo inuu galo iskaba dhaaf. marka walaalayaal waxaa la rabaa in marka niyada la hagaajiyo oo yani muxuu ahaa yani muxuu aha markaan soo dulmaro akhlaaqda qofka daaciga inay hagaagsan tahay oo yani isagu runlow yahay, dhaqankiisa uu fiican yahay, si asluubkii qaabku dadka wax ugu sheegay inay fiican tahay, xikmad inuu isticmaalayo, tan ugu dambaysana inuu yahay mid ilaahay subxaana wa tacaala dartii uu dadku wax ugu sheegayo ee ujeedadiisu aynan ahayn inuu isaga uu ammaan iyo wixii lamida uu ka helo. muxuu ahaa marka walaalayaal intiina hadda dhegaysanaysa ee muslimiin ah, ogaada dhammaantiin waxaad tihiin sufaraau diinikum aynamaa xalaltum. diintiinni baad danjirayaal u tihiin meel alle meeshaad joogtaan. weliba dadka waxaan la hadlayaa yani dhulalka qurbaha jooga ama meeshaan diasparaha la yihahdo ama dadkan yani alqurbaha, yani diintiinni waxaad u tihiin sufaraa, danjirayaal baad u tihiin. qaabka idinka laydinka arko ayay dadkii aad la nooshihiin diintiina ay u fasiranayaan. akhlaaqda idinka laydinka arko ayaa diintiini dadka aada la nooshihiin ay u fasiranayaan. ittaqu llaha fii diinikum, ilaahay uga baqa diintiina iyo inaad si wanaagsan aad u bandhigtaan, inaad daacad aad ka ahaataan wax aad samaynaysaan, la dhaqanka aad dadka la dhaqmaysaan inaad noqdo dhaqan saxa. aad dadka la dhaqmaysaan ha noqdeen muslimiin ama ha noqdeen dadaan muslimiin ahayn. qofka muslimka dhaqankiisu isma bedelo oo mar walbaba ilaahay buu subxaanahu wa tacaala yacni uu ka baqayaa. marka waxaa la rabaa qofkii shaqo loo dhiibto shaqadiis inuu daacad ka yahay, sida ugu fiicanna u guto. qofkii wax lagu aamino waxaa laga rabaa wixii lagu aaminay amaanadiisi inuu xifdiyo. qofkii mathalan sir lagu aaminay sirtiisa inuu xifdiyo. qofkii ilaahay hadduu ku ron yahay dad waxaa la tijaaraysanay tijaaradiis inuu daacad ka noqdo. waxaa kada walaalayaal diintu ma aha keliya marka la tukanayo iyo marka yacni la soomayo iyo marka la xajinayo keliya ma aha intaas. waxa weya diintu yani kuwaas aad aragteen waxay ka tahay qeyb diinta ka mida wey, ee diintu waa noloshaadoo dhan wey. markaad dad la dhaqmayso, markaad waa tijaaraysanayso, waa beec iyo shiro aad ku jirto, markaad muxuu ahaa aad wax baranayso, kulligeed waxaa la rabaa inaad xayndaabkii diinta aad ku jirto oo aad ilaahay ka baqayso ood kula dhaqmayso dadka akhlaaqdii islaamka aad kula dhaqmayso. ama haddaad yeesho markii adigaa dadka la dhaqmaysana saarabta aad ka yeesho, yacni markii kalena aad tiraado salaadiina ima dhaafayso aad tiraahdo, waxaa ku jira meesha tanaaqudi isburin baa ku jirta. waxaa aada iyo aad wax foolxumo ah marar badanna nala weydiiyaa nana soo gaara inay dadka walaalaha dhulalkan usoo qaxay wadamada gaalada inay mararka qaarkood ayagoo tukada laga yaabo inay khayr ka dhegaystaan, cilmiga bartaan, laakiin waxyaaba aada u foolxun ay ku jiraan oo khiyaamooyin ah. waxaa ka mid ah matalan khiyaamooyinkaas walaalayaal inay dadka meelaha ay degan yihiin ama wadamada ay u yimaadeen ee soo dhoweeyey ay yacni loo soo dhoweeyey oo guryo la dejiyey oo lacag loo qoray oo la yidhi saasaan idin caawinaynaaye nala shaqeey oo idinkana noo sheega xajmiga muxuu aha qoyskiina intuu yahay, xoola hadday idinku soo kordhaan, wax aad qaadataan, yacni runta noo sheega si aan idin caawino, ama haddii markaas aad naga maarantaanna dad kale oo u baahan loo caawiyo. waxaad arkaysaa marka in dad ama guryo muslimiina inay markaas ay dhacdo in lagu heshiiyo labadii qof ee la joogay, ninkiina inuu hoosta muxuu ah shaqo uu ka aado oo isqariyo ama uu yihahdo haweentii ma qabo. hadduu alla ku roon yahayna haweentiina markaa si gaara nin ima qabo ay tiraahdo, oo haddii markay aad aragtona ay ka muuqato calaamadii islaamka iyo xijaabkii iyo satrigii, ninkii waxaa laga yaaba inay ka muuqdo muuqaalkii islaamka, oo xoogaa yaroo doolaraada iyo lacag yaroo soo ziyaado darteed in cariirigaas loo galo oo la dhuunto oo laisqariyo oo sidaasi waxa lagu aruuriya la yihahdo. awalan horta ogaada walaalayaal, khiyaamadu inayna banaanayn muslim iyo gaal qof u yaaba in la khiyaano.
waxa sidaa kugu soo galan inayna xalaal ku ahayn. tan saddexaadna marka lagu qabto inaad ceeb naftaada iyo diintaadii baad usoo jiiday oo yani aad ceebaysay diintii aad u nasab sheeganaysay. diintu ma ceebaysna ee adaa ceebtii usoo jiidayo dadkii fahmi lahaa baad ka hor istaagaysaa. intaad diinta dadka ugu yeeri lahayd caqabaad ku noqotay oo diintii dadka ka horjeego inaad maaragtay inay fahmaan ama ay ku dhaqmaan. arrimaha noocaas oo kale marka waxaan leeyahay walaalaha ha laga waantoon oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baa risqigiini ballan qaadaye ha lagu kalsoonaado ilaahay subxaanahu wa tacaala. tasawurkiina iyo caqiidadiina hala saxo. risqigaaga wayn maysid. waagii adiga aada uurka hooyadaa ku jirtay baa la qoray wax alla waxaad quudan lahayd iyo waxaad cabi lahayd. degdegta kugu jirto iyo khiyaamada aada la imaanayso risqi kordhin mayso. waxa adiga aada maaragtay yani nafta kugu sheekaynaysana kuu xaqiijin mayso. marka waxaan leenahay yani in liska ilaaliyo wey akhlaaq xumida yani dadka qaarkood lagu sheego hadhowdii loo qaadanayo dadkan waa dad noocaas oo kale ah. akhlaaqda diinta wanaagsan oo la muujiyo waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood usoo jiido islaamnimada intaadan afkaba ka hadlin. runtaada, daacadnimadaada, shaqada saad u qabato aadan maaragtay laablaab lahayn, saacadihii lagugu talagalay ood shaqayso, kartidaada, wanaagaaga marka la arko waxaa laga yaabaa dadkii kula shaqaynayay ama dadkii aad u shaqaynaysay inay jeclaadaan. kadibna aad awood u heshay inaad la sheekaysato, diintana aad u bandhigto, lagana yaabo in sababtaada ilaahi subxana wa tacaala uu kusoo hanuuniyo. waxaa la sheegaa dadkii muslimiinta ahaa muxuu ahaa wadankan hadda layihahdo indonesia, dacwada islaamka waxay ku gaartay dad tujaar ah oo yamaniyiin ah oo wanaag yani u tagay tijaare iyo baac mushtar. dhaqankoodii iyo dabeecadoodii iyo ammaanadoodii ay la yaabeen dadkii wadamadaas deganaa ayaa u sabab ahaa inay islaamaan. maantana waxaad arkaysaa indonesia waa wadanka ugu population badan wadamada muslimiinta oo dhan. wadamada muslimiinta wadan muslim oo ka badan xagga populationka wadan la yihahdo muslim yani muxuu ahaa ma jiro. maxaa yeele ayagu muxuu ahaa yani waxaad arkaysaa yani waa wadan muslimiin ah. dadka kale yani tiradoodu waa aad bay u yar tahay. marka waxaa la dhihi karaa wadamada dadka muslimiintu ay lagu tiriyo ugu xooga badan wey. marka waxaa la rabaa marka meel alle meeshan joogno inaan akhlaaqdeeni iyo dhaqankeennaba aan noqdaan mid dacwada diinta dadka ugu yeera. ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan uga baqno waxyaabaha xun ee maaragtay aan ku jirno inaan ka baxno kana toobad keenno. qofkii horey u samayn jiray oo fursada ku noqoto aad kaga toobad keento kana noqoto dadkana in la wada ogeysiiyo. dacwaduna in maaragtay muxuu aha aan xoojino ama muxaadara ha noqoto ama qoraallo ha noqoto. yani maanta waxaad arkaysaa dadkii aan soo sheegay ducaatu shar inay nooc walbaba adeegsanayaan. yani qoraal iyo muxuu ahaa aflaam iyo muxuu ahaa mediyaha waxaan la yihahdo ama waxaa la yihahdo wasaa'il iclaam, waxyaabahan wax lagu faafiyo, tv-ga, internetyada, raadiyaasha, waxyaabahaas oo dhan inay adeegsanayaan inay baatilkooda ku faafiyaan. waxaa laga rabaa dadka ahlu khayrka ana arrimahaas oo dhan inay u adeegsadaan. dadka ilaahay taalantiga uu siiyey, caqliga uu siiyey, fahamka uu siiyey, qof walbaba waxaa laga rabaa inaad aqoontaada iyo taalantigaaga aad diinta ilaahay ugu adeegto. qofkii combyutaradan wax ka yaqaana iyo muxua soo yani barnaamijyadeeda iyo softwareradeeda iyo sida yani maaragtay loo isticmaalo, waxaan leenahay la tacaawun oo la shaqeey dadka walaalaha ee diinta maaragtay faafinayo. ku faafi khayrkaasi, u sameey websiteyo yani si aad u noqoto miisaankaaga xasanaadka ay kugu noqoto adoo dhintay oo aakhiro tegay khayrkaasi aad ka tagtay inayd maaragtay qeyb oo dadka maaragtay ay ka faa'iidaystaan ay kugu noqoto oo ummadana ay uga faa'iidaysato. waxaa yeelay ilahay wuxuu yihi wabtaqi fima aataaka allahu addaara alaakhira. wax alle wixii ilaahay uu ku siiyey, maal ha noqdo, caqli ha noqdo, taalanti ha noqdo, wax walba oo aakhiro ku dalba oo janno ku raadsada. marka waxaan leeyahay qofowna isdhihin aniga waxba ma awoodo. yacni khayrka oo maarata qof aad ehelkaaga saaxiibkaaga ah haddaad cajalad aada duubtay aada boostada u dhigto, maanta weliba boosta in la dhigo waxaa ka sahlanba email baaba lagu diri karaa isagoo coda.
waxaad u linkigii meeshaas uu muxaadarada ku jirtay baad u diri kartaa dadki sidaasa khayrka laisku gaarsiiyaa dhammaantiin inta dhegaysanayso qof walbaba hadduu iimailadiis u adeegsado maalin walbaba uu diro hal muxaadaro uu u diro 5 qof billaahi calaykum fadliga aad helaysaan maxay idinlata intay la eg yahay mideeda kale khayrka aad qabateen iyo dacwada aad gudateen intay la eg tahay maalin walbaba waa click aad siiso computerka on internetka intaad furto yani aad furto muxuu ahaa emailkaaga aad muxaadarada soo qabato ood ku dhajiso kadibna inta listiga kugu jirto aad u dirto oo tiraahdo yani ha dhageysteen waxaa laga yaabaa maalintiiba intaasoo qof oo iska غفلة كجت إني أركان أو يفران أو يدقيستان وأجري كذا أتشوف مركب وحنا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أن كبقنو يعني الدلال أن لن نمانو كل موضوع واسكدير هاي يعني محوها أن استعاون أو سمينا دعوة الدين فافين ترى يعني وقت جينا وايجا ضعي هولا بدنا اسكجيران مركا إن شاء الله ودرس كان موضوع دعوة أن كجاه الله أنت أيام كسو جبينا يا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.